ويا بسم الله الرحمن الرحيم كونفور قلبات isbedel weyn ayaa ka dhacay sida ogtiin gabadhan ayaa sheekada koonfur goboleed oo soo koobis hoob uu doorasho degdeg ah hal saac ninka samaay 30 daqiiqa uuna ka galnay magaalada 30 daqiiq ma isin daaraysi hoob doorasho degdeg hal saac uu ninka samaay uuna 30 daqiiqa ka galnay ma isin daaraysi shawrtan ma ko waliba muddo badan sugaanay dawladda Soomaaliya bayro oo hore siyaasan go'doon yahay 30 daqiiqo doorasho la qaban doono gaari bayda halkeeda sidoo ahaa maamadan ayaa ayadana noo soo koobis bayda wax bursanayti rays war aburi askari boolice koonfur galbeed ay ahaan kaseed askarti shariifasna aha haan shay madiisu kooy haan shay may leeraayis boqoli kontonasiyay uleena shariifka bay bahad la bahad waayahay bismillaahir rahmaanir rahiim marka inta aanan ciidanka iyo wixii dhacay u gudagelin horta waxa rabaa dadka ka dhashay dabcan digli marifle tusaale fiican ayaa maanta noqoteen waxa laga yaabaa intiin badan inaadan ogeyn laakiin Soomaalida inteeda kale ayaa horta indhihii u furteen wala markoowe waxa muujiseen inaadan isdileenin oo qabiilkan dariskaada ah waa beesha kale beeshan guud in hal meel u wada socotaan digli marif isku dar raxweyn oo dhan ayaa dabcan maanta muujiseen taasoo tusaale fiican mid ayaa xaqiiqo ah ama adiga taageersanaa Cabdicasiis lafta gareen ama ka soo horjeed mid ayaa xaqiiqo ah in aanan waxba loo qabanin goboladaas kheyraadka uu ka buuxo bay bakool shabeelaha hoose jubbooyinka dhulkaas dadka afka mayga ku hadlo ee degaan oo kheyraadka uu ka buuxo horta Cabdicasiis waxba uma usan qaban laakiin dhibaatadaas kaligiis kuma ahano maamul goboleedyada hadda waxa niskuwana soo hortaagan madaxweynayaasha sheegto dhan fiiriya qaybtan waa xasaasi sababtoo kuwan madaxweynayaasha sheegto ilaa gees marba inaan magacaabaan kulli waxa maanta madaxweyne maamul goboleed madaxweyne sheegto dhan isku soo dardar dantooda ay meesha u joogeen ilaa haddana u joogaan guriye dhisteen caruurtooda dalalka ugu caafimaadka fiican ugu waxbarashada fiican u dirsadeen guriye dibadaha ka dhisteen guriyaha ay gudaha ka dhisteen waxa ka tiro badan guriyaha ay dibadaha ka dhisteen dalal shisheeye ayay waxay la soo galeen konturaadyo ayaga beel u gaara ama dad saaxiibo ay yihiin gacanta loo geliyay marka shicibka caadiga ahaa dadka meesha deganaa ee la rabay in loo adeego looma adeego waxba looma qaban Cabdicasiis marka dabcan waa tusaale fiican oo abaarta dhulkaas ku habsatay iyo in maanta oo dhan hay-ado shisheeye la tuugsado gacmaha la taago xitaa Cabdicasiis waxyaabaa kale uu sameeyey dabcan waxa ka mid ahaa ama adiga taageersanaaw ama necbaaw aniga meel aan ka taaganaa ninkaas ma jirto xaqiiqda kaliya waxay tahay in aan waxba loo qabanin dadka tirada badan ee Ilaahay meeshaas uu ku beeray ahlu diinka ah ahlu aqoonta ah waxba looma qaban iskuulo lama dhisin wadooyin lama dhisin mashruucyada la soo galay xabad lagama siinin ummadda Soomaaliyeed guriyaha dabaqyada dhadheer arkaysaan bay dhaba ka dhisan guriyaha dhadheer iyo hoteelada dad qurba joog ah ayaa dhistay oo xitaa iyagaba lacag laga sii waa ogeen dadku ay la socdaan iyagaba canshuur la sii dul saaraba حتى مقالة مقدسة وكجرت أمان بوساسي كجرت هرجيس كجرت هذا قرب جوج أمر كارث إن ضدك هذا حقوق بتيجي ماشي اسمه قروح بدنا أكيد استي هذا عن شور لو دول صار عن قروة أقهر إيمانه اللي بعتفر بدنا جرت مركا ريوين ما أنت تصالح في عن أي نقطتين سومال أنت هذا كله يعني إلى ما أها إن تن قدام بين دونت وهي إلى تهاي تن إلى بلاو تهاي أو أرك دونتان توك ضدك سهر تاجن إلى عرسنايو وأرك دونتان اسبوعي soo socdo bilaa soo socdo sanada soo socdo waxay noqotaba dabcan dadkii hurdada ay soo kaceen way idinkana horta waxa leeyahay hambalyo 100% isma dilin xabad ma tuurin laba wiil oo iska soo horjeedo oo xabad isku riday oo reerka ah lama arkin alxamdulillah taas qolada hadda xilka qaban rabto dhulkan quruxda badan kheyraadka uu ka buux bay bakool isho salahan hadda dadka ogeen عرضان باي قفك تجي أي خان عرض الكاس إلى أكو بيري صومالي أنت ذا كله لجمع حلو وحكم ده black cotton soil عرضاس أوجدان هذا إذا هرتالو أو ملاس الحشة الكاس أي لجه حلا رير بي دور رير باي رير بقول ويوجيه ومد كلية دير علالي دير تعرف أكو بيري كرتوا fertile وعرق ومدى دولكاس دغانو دن اي كتاجير كران وهدي كليا Cabdicasiis iyo kan imaan doonaba
dacis lafta gareen iyo kan madaxweyne noqon doona koonfur galbeed waa hadday keliya dadka uga faa'iideyn lahaayeen cid looga faa'iiday habeereeta ma jirto qarni ka qarni ay dhulkaas carada iskaga taalaa beeraleydii dhibaato fara badanaa haysato waxba ma beertaan sababtoo ah maamul xumaa jirto marka ilaahay subxana watacaala waxaa ka baryaynaa maamulka soo socdo inuusan ilaahay ka dhigin kuwa hadda joogo iyo kuwana soo maray oo kale ilaahay inuusan ka dhigin ummadaas maanta dhulkaa degan gaar ahaan baydhabo ilaa buur daadsan ee soomaalida ah ee maanta isku soo baxay ayagana dabcan tusaale fiican ay noqdeen waxaa kaloo leeyahay hal ka mid noqda maamulka cusub ee la dhisay ka mid noqda yaan la idin gambinin yaan la idinka faa'iidaysanin maanta muuqaalo fara badan ayaa socdo oo la baahinayaa dadkan hadda danaha siyaasadeed kale dhulkaas ayaa idinka faa'iidaysanayo oo soo dhaweyntiina iyo marxabadiina iyo dhoola cadeyntiina iyo ka dhigaayo dad ayaga wato oo kale macnaha campaign jaab waxaa bilowday ololihii doorashada madaxtinimada bilowday marka waxaa idin leeyahay si toos ah ugu lug lahaada oday dhaqameed iyo keliya ma ahane dhalinyarada dhulkaas joogto dhalinyarada ugu tirada badan hadda dhulkaasaa laga helaa xaqiiq marka laga hadlo aadka u tirada badan laakiin camalkii ahaynin jaamacadihii soo dhameeyey laga yaabo dugsiyadiisa soo dhameeyey macallin dugsiye iska noqdeen qaarkoodna tahriibay ku jiraanoo maanta waxaa laga yaabaa in asagoo tahriib kusii jiro uu maanta arkaayo waxaa xaafadiisa ka socday isbeddelkan ballaaran ee dhacay qurba joogtana fursad siiya ayaga keliyaba awoodaba in ay shaqo bixin iyo shaqo abuur iyo wax walbaba u sameeyaan war cid siyaasaddu waxay noqotaa hadda qurun runta marka kaad siyaasadda qurun ay noqota adigaan hadda idaawanaysid finland markaad tegtid 5 sano aad joogtid dadka dariskaaga kugu tutuugayaan xildhibaan noo noqo waxaa rabaa inuu soo gogoyo muuqaalkii horta igu xamaasada badnaa ama emotionka lahaa maanta muuqaalkaan u ahay nin askari ah oo gabar ama walaashiis ama xaaskiisa ama qaraabo ay yihiin way ximbaartay gabdhaheena ilaahay ha sharfo awoodda iyo xoogga ku jiro gabdhaha kale adduunka jiimay galaan ma helaan intaas bal arag muuqaalkaas aad u ii taabturnaantii waxaan leeyahay ummaddaas koonfur galbeed kuwa gudaha joogo kuwa dibadda joogo yaanan dowladda federaalka yeesan noqonin tan soo far muuqdo oo qofkay rabta iska keensato ee idinka awoodda si buuxda meesha ugu lug lahaada